maamulka macallimiinta sharafka bahda saxaafadda ardayda qalinjibinayso iyo ardayda aan qalinjibinaynin qof kasta oo hawlka ku sugan mansab kasta iyo maqaam kasta oo halkan ku fadhiya ayaa ku salaamay salaamkaas waa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam waxaa sharaf weyn inoo ah inaan naga soo qaybgashaan xafladan ay maanta ku qalinjibinayaan arday gaaraysa 106 arday waxaana wiilalka 54 arday waxaana gabdhaha 62 arday waa dufcadii tobanaad ee dugsiga sare iyo dugsiga dhexe iskuulka Daawuda Moodan waxaa la aasaasay 2009 bishii Maarso 5 ayaa la aasaasay iskuulka beekiisa macadka waxaa albaabada furnay 2014 bishii Julaay 29 sanadkan oo 2024 ugu 10 sano jirsaday waxaana ka baxay foorkii dufcadii tobanaad ayaa qalinjibisay sanadkan 2024 waxayna dhamaysteen foorka sanadkan dhammaan heerkoodii waxbarashada waxaana ka qaybgalay sidoo kale imtixaankii qaranka ee wasaaradda waxbarashada ay soo diyaarisay waxaana u rajeynayaa inay guulaystaan imtixaankaas qaranka sidii hore ugu wada baasayba ardaydii ka horeysay sanadkii ka horeeyey iskuulka marna hore uma soo barin in arday fasalka dhiganayo uu ka baaqdo imtixaanka wasaaradda waxbarashada ay soo diyaariso sababtoo ah marka hore ayaa ka diiwaangelinaan sistamka wasaaradda waxbarashada ee leedahay loo yaqaano ELISA iskuulka waxbarashadiisa waa mid casriyeysan lana jaanqaadi karta fahamka ardayga waxaana bixina toddobaadkiisa maalin kasta sanadkii waxay isku noqonaysaa 18 saacadood waana halbeega ay wasaaradda waxbarashada ay u jaangoysay iskuullada inay ku bixiyaan 18 saacadood sanadkiiba waxaana mar walba la soconaa horusocodka ardayga dib u dhiciisa maqnaanshihiisa waxaana xiriir joogta ah leedahay waalidiinta ardayga taasoo inta badan waalidiinta ay ugu ammaaneen sidoo kale waalidiinta ardayda waxaa u soo kordhinay sistem ay kula socon karaan ardaydooda macluumaadkooda oo idin ballanqaadka dugsiga wuxuu idin ballanqaadayaa in uu mar walba uu ka dhaweeyo horey usii hormariyo halkudhiga iskuulka oo ah waxbarasho tayada halkudhigaas inaan ka dhaweeyo ayaa ballanqaadkeeda inoo ah insha allahu tacaala dardaarankaa u soo jeedinaya ardayda maanta qalinjibinaysa waxaan leeyahay arday hore usii wada cilmigiina sii horumariya muraajaceeya mudaalaceeya baraktikeeya sababtoo waa cilmi si adag idinku soo galay si sahla iyuuna idinka ruyo sidoo kale ardayda foorka waxaan leeyahay maadaama maanta aad dhamaysateen dugsigiinii sare iyuuna waqti idinka rumin haluu biiro jaamacadaha si ugu dhaqsiyaha badan dardaaranka waalidiinta usoo jeedinaya waxaan leeyahay waalidiinta ardaydooda habdhaqankooda ha wanaajiyaan mar walba hala tashtaan hala saaxiibaan ardaygooda sidoo kale hala tashtaan maamulkooda iyo macallimiinta ardaygaas ay ku ammaanaysteen haddii aynan mar walba ardaygooda la saaxiibin ayna la tashanin sidoo kale maamulkooda ayna la saaxiibin iyo macallimiinta ayna la tashanin arday waxaa baray ku taagan mid kale oo saadid ah oo waxbarashada ka marin hawaabinayo marka sidaa daraaddeed waalidiinta waxaa leeyahay mar walbo la saaxiiba lana tasha ardaydiina iyo sidoo kale macallimiinta iyo maamulka waxu dhigaan sidoo kale waxaan leeyahay waalidiinta haddii maamulka iskuulka iyo macallimiinta ay idiin soo jeediyaan in ardaygiina uu ku liito maadadaas degdega ooga dhisa ha ka ogolaana ardayga inuu guriga ugu fadhiyo uu kuu seexdo si dhaqsa ah markuu imaado duurkii kadib ama galbihii baraafidyada ilageeda la dhisa ayaa muhiima mar baa maamulku soo wargeliyey in maado uu ku liito ardaygaas haddii sidaas aanama sameyn waxay khatar ku noqonaysaa ardayga mustaqbalkiisa dhammaan inta xafladda laga soo qaybgashay markale waxaan leeyahay waa mahadsantihiin walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun